بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامي ولا عليك الصوماليات ميل وبقى دافع على كجوكتان سلام كدب الحمد لله الله بما هذا نسوقت هاي أنت كدب إن شاء الله وحرب موضوعي مالك الودان كهلني أو أها ولا لك الصومالي يدو سيدة ولا رقم كرتا حاس كاجا قيبتي سلابات إن المانتنا كهذا أو walaashayda Soomaaliyeed sidee ula dhaqmi kartaa adiguna ninkaaga insha Allah. marka waxaan rabaa inaan mowduuc sii guda galno insha Allah biidnillah. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa idhaaru الحب على زوجك, in aad u muujiso ninkaaga jacayl, dhaqankaaga jacaylka uga muujiso, hadalkaaga jacaylka uga muujiso, labiskaaga jacaylka uga muujiso, dhinac walba oo kugu saabsan in aad walaashayda Soomaaliyeed ninkaaga u muujiso jacayl joogto ah. qodobka labaad wuxuu noqonayaa inaad ninka u masaajiso jirkiisa markuu shaqada ka yimaado, mar walba kula joogo in aad jirkiisa u masaajiso, waayo qofkan wuxuu dareemayaa naxariis badan iyo inuu haysto qofkan xay oo ka fikiraya oo daalkiisa iyo ay dhibaso oo daalkiisa la qaybsanayo. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa al-cudur, in aad isu soo catriso oo isu soo carfiso oo guriga u carfiso oo guriga markuu yimaado guriga caraf badan, adigoo caraf badan, labis qurux badan wata, inuu mar walba ku arko. ninkuna uu jecel yahay wax carafta badan leh. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wakiil ahaa adduunka laba shay baa laga jeclaysiiyey oo ah al-citru wan-nisaa, dumarka iyo wax carafta badan leh. nin walbana labada uu jecel yahay, nin walba labada uu jecel wax caraf badan iyo dumarka labada uu jecel nin walba. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in aad mar walba sameeyso waxa loo yaqaan tajdiid, in aad guriga cusboonaysiiso waxaan ka wadaa waxaad kala bedeli karto inaad kala bedesho, daaha maanta inaad bedesho, gogasha kala bedesho, sariirta dhinaca u jeedin dhinac kale u jeedin karto u jeediso, fadhiga hadaad kala bedeli karto dhinac kale geyn karto inaad kala geyso. yani mar walba oo soo galo bishiiba mar ama laba jeer aan ku sameeyso, mar walba inuu ka fikiro kale fadhigan meeshan yaalay mise halkan yaalay, sariirtan ma sariir hadda la keenayba mise waa sariirta oo saan loo kala galay oo yani saan loo kala wareeji. waa inuu su'aalo badan isweydiiyo. marka ninkuna wuu jecel yahay gabadha tajdiidka iyo waxa cusub sameeyso mar walba jecel, wuu yani jecel yahay iyadoo aan la sameeynin israaf oo wixii inta la tuuro wax cusub marba la soo gadeen, laakiin waxa aad haysato aad kala farsamaysanayso insha Allah. qodobka afraad wuxuu noqonayaa waa inaad ninkan dareensiiso in aad calaaqadiisa iyo xiriirkiisa iyo ka fikiritaankiisa mar walba in aad qalbigaaga iyo maskaxdaada ku hayso, in aad dareensiiso ninkaaga. qodobka lixaad wuxuu noqonayaa in aad ninkaaga mar walba xaaladda ku sugan yahay aad fahanto, hadduu xanuunsan yahay, hadduu daalan yahay, hadduu faraxsan yahay, hadduu caadi intaba inaad dareento. midda labaad oo iyana dumarka Soomaali dhibka haysta waxa waaye ninkii oo shaqo ka yimid oo daalan ba waxa laga horkeenayaa dacwo, ilmihi waxaana ka dhamaaday, guriga waxaana ka dhamaaday, saaka waxaana kuu diray, maxaa u soo ilowday, waxa la yiraahdo hebel baa soo wacay, xagay wax ka dhicin. ha sameyntaas please, fadlan ha sameyn. waxaad sameysaan marka hore ninka deji, cunto sii, cabitaan sii, u masaaje, markuu dego xaaladiisu caadi noqoto, maskaxdiisii iyo qalbigiisa u dego, markaas si tartiib ugu sheeg wax walba u sheegtana si xaqiiqa markiiba uu ku sameeyaa insha Allah. laakiin markuu saa u yimaado hadad qaylo kala hor timaado, isagana qaylo kuugu jawaabaya. hadduu qaylo kuugu jawaabana waa qaylo uga jawaab, hadhowna faa'iido iyo wanaag meesha ka dhalan maysa, waxa ka dhalanaysa khilaaf iyo madax la isla galo. qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa ninkaaga mar walba amaan. hadduu kula jooga amaan waxaa ku tiraahdaa wallahi ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan adig ku helay, oo ilaahay Rabbi subhanahu wa ta'ala mar walba ilaahay waa xamdi alxamdulillah iraada ilaahay ay ka siiyay adiga. malayn ma noloshan haddaan sii noolaan lahaa xataa inaan nin adigoo kale heli lahaa, xataa hadduusan wanaagsanayn amaan. dadka koortiisa ku amaano waxaa tiraahdaa ninkayga nin la mid ah weligiiba maba aragba, ninkayga nin la mid ah malayn ma gabar haysata inay jirto, malayn ma ninkayga nin ka wanaagsan inuu jiro. yani amaan badan u sameeyo. haddaad ninkaaga amaantana ogow gaariga steerinka laga wadaa, ninka haddaad amaanto steerinkiisa gacanta ku haysaa ogow. qodobka kale wuxuu yahay
oo sagaalaad wuxuu yahay qodobka waxaan leeyahay sideedaad wuxuu yahay ninkaaga mar walba ka dalbo inuu kuu muxaadareeyo oo wanaaga kuu sheego qodobka tobnaad wuxuu yahay ninkaaga mar walba u mahad celi mar walba wanaag kuu sameeyo shukran jazaaka allahu khayr xabiibine ilaahay subxaana watacaala wanaagay khayra kaaga abaalmariyay qodobka 11aad wuxuu yahay ninkaaga akhtaa'diisa iyo khaladaadka ka dhaca mar walba u cududaar ha u qabanin qodobka 12aad wuxuu yahay ninkaaga sirtiisa u qari walaashay marka waxaan kuu sheegayaa horta intaasan kusoo koobaya insha Allah waxaan kuu sheegayaa qodobadan iyo qodobo lamid ah hadaad ku dhaqanto wallahi insha Allah ninkuna uu kuwii hore aan soo sheegay uu ku dhaqmo wallahi inaanan la helayn laba qof oo is haysta qof walba labadiina waxa idin dhexdhacaya waxaan la yiraahdaa loof iyo jacayl dhexdeena soo galaya mar walba loof iyo jacayl dhexdeena soo galana waxay imaanaysaa in aad heshiisaan iyo in aad nolol fiican ku wada noolaataan intaasan ku soo koobaya wixii aan khalday nafteeda shaytaan bay ka ahaadeen wixii aan saxina Allah iyo waafajiyay ma hadskale wa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh